afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Sheekh Abuukar Maxamed oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka gaar ahaan furimaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu fariin digniin iyo dardaaran iskugu jirta u jeediyay guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Janaale ee gobolkaasi afhayeenka oo la hadlayay ururka 144 ee kuutada 14 Oktoobar ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa marka waxaan rabnaa inaan dhowr shay isxasuusino ee qayb ka tahay salaada Ilaahay difaaca dalka iyo diinta ee qayb ka tahay inaysan dhalinyarnimada qaadino timaha la quruxsado ayaa wax iska leeyna hadii Alle nabigeena kaleey salaatu wasalaam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum udah qoom walba qofka isu akaysiyo qoomka isu akaysiyo iyo qiyaamaha kamid noqona hadaan maanta nin fiican oo aad jeceshay cibaadadiisa aad isu akaysiiso qiyaamaha asafay la galay nin fool xun oo timaas raam u jartay oo sida diiq u jarto kale hadaad u jaratana qiyaamaha asafay la galaysa salaadaada tirada badneed iyo soomkaaga cibaadadaada hal xabo ku tari maayo waxa lagu leeyahay ninkaan aad isu akaysiisay oo aad jecleeda feelka la galaa lagu leeyahay soo nasiib darama marka waxaan rabnaa wax noo soo kordhinayn laakiin wax naga dhibaayo inaan ku dadaalin oo iska ilaalin loo baahan waxaan kale u baahnaa waxay tahay wax kasta oo maala yacni ah oo akhlaaqdeena ama waqtigeena luminaayana inaan iska ilaalino ee qayb ka tahay ciyaarahan telefoonada laga dheelo one xbig iyo balaayadaas xaaraana way tahay oo wixii laga helo qamaar oo kale waqtigaagana wuu luminaa min xusni islaam almar'i tarku ma la yacni islaamnimo wanaag waxa kamida waxyaabaha maala yacniga ah inaan isaga tagtaa kamida waxaan u baahannahay Ilaahay dartiisana isu jeclaano waxaan u baahannahay qof walbo aan dhibsanayno in alhubbu fillah wal bughd fillah wax la yiraahdo Ilaahay dartiisa qofka loo jeclaado wanaagsan qofka xunna Ilaahay dartiisa u nacno cibaadaysano waajibaadka Ilaahay na saaray aan gudano waajibaadka qaranka na saaran aan gudano naga rabaa waxaan rabnaa marka waxay tahay salaada Ilaahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay man taraka salata faqad kafara qofkii salaada ka tago qofkaas waa qof gaaloobay salaada Ilaahay waxa la rabaa muslimka wax calaamad lagu garto waxa kamida salaada kamida qof hadii salaada Ilaahay dukaneen muslimadiisa faraha ku jirto waxaan rabnaa marka maadaama islaam aan nahay ummatul muhammad aan nahay qiyaamaha inuu nabi maxamed nagu faana aan rabnaa kaleey salaatu wasalaam waxa waajib nagu ah inaan salaada Ilaahay ku dadaalno ina Ilaahay ka cabsano goob kasta aan joogno dadka aan kula macaamilno dabeecad wanaagsan midda nagal raba taas waa dabeecadda wanaagsan marka waxay na tusaysaa bulshada Janaale joogto iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhaaran in dhaqan wanaagsan la macaamil qawlun ma'ruufun sadaqa Ilaahi adhahay subhanahu wa ta'ala qawlka wanaagsan waa sadaqo waxaan rabnaa qawlka wanaagsan oo ah akhlaaqda wanaagsan in ciidankan ku dadaalaan waxaan ka rabnaa waxay tahay difaaciyada nabigeena kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisu wuxuu ku dhaalaa nabiikum bilaylatin afdal min laylatil qadri ala wa hiya harisul harasi fi ardi khawf la'allahu alla yarji' ila ahli war ma idin sheega habeenka fadli badan laylatul qadri khayru min 1000 shahr soomahan ayad quraanka laylatul qadriga ayaa ka fadli badan kun bilood sidoo Ilaahay quraankiisa ku sheegay kun kaas bilood laylatul qadriga ka fadliga badan waxa ka sii fadli badan ala nabiikum bilaylatin afdal min laylatil qadri ma idin sheega habeenka fadli badan laylatul qadriga oo ah ala wahiya harisul harasi habeenkaas waxa waaye habeenka waardiyaha oo qabto waardiyaha markuu qabto waardiyaha ayaa ka fadli badan laylatul qadriga aan ognahay fadliga ay leedahay waxa ku qabtay fi ardin khoofin in xamar joogo raaxaysta ma fi ardi khoofin dhul cabsi ah ayuu ku qabtay soo waardi ma qabataan dhul cabsi soo ma joogtaan la'allahu alla yarji' ila ahli laga yaabay inuu ehelkiisa soo nabad qabo u laaban la'allahu alla yarji' ila ahlihi irlihiis inuu soo laabana laga yaaba habeenkaas waardiyaha uu qabta ayaa ka fadli badan laylatul qadriga meeqa habeenaa Janaale qaarkiina dhowr sano jooga Soomaa uuraan waa qaar 2 sano 3 sano jooga Soomaa ninkii Janaale marka la qabanaayo ka tirsanaayo ururka 80 iyo afraad oo kidib loo soo wareejiyay ururkan oo loo bixiyay 140 afraad oo Janaale maalintii la qabanay ilaa hadda taagan waa habeen walba waardiye qabto ama oo dheeg lama siibi laga soo bedelo habeen walba waardiye qaba jiray habeen walba hadii laylatul qadri wax ka fadli badan aan sameey jirtay soo faa'iido ma laakiin maxaa ku helay ina cibaadaysato Ilaahay ka cabsato waa haddii salaad Ilaahay ka tagto
jihaadkaagana wax ka jiri maayo cibaadadan wax ka jiri mayso waxa asala salaad ilaahi